farmaajo waxaan jecelahay markan munaasabadda annagoo gunaanidkii marayna in aan soo wada dhaweyno madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال يا مرويين ولا الصوماليات رئيس الوزراء يا حكومة حلقارسينته مدنياش الله بدا أقل برلمانك مدحدا يا وكيلدا أن ولا لها النهي يا صاحبدا النهي كسو قيب قلي مناسبة madaxweynayaashii iyo ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka Soomaaliya madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir marti sharafta kala duwan ee timida meesha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mahad oo dhan waxaad u sugnaatay Allah subxaanahu wa tacaala. kadib waxaan u mahad celinayaa wakiilada shacabka Soomaaliyeed ee mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo mar kale igu aaminay hoggaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waxaan sidoo kale farxad iyo sharaf weyn ii ka soo qaybgalka mugga iyo miisaanka leh ee ay dalalka aan walaalaha iyo saaxiibada nahay uga soo qayb galeen munaasabadan caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya. dhowr iyo 60kii sano ee Soomaaliya ay xorta ahayd waxay qaadatay hannaanka dimuqraadiyadda marka laga reebo 22kii sano ee ciidamadu ay talada hayeen. dhaqankaas waa mid ay ku faani karto ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan isla markaana saldhig u himilooyinka iyo tiigsiyada shacabkeenna sharafta leh ay tiigsanayaan ama ku haminayaan in ay ahaadaan dal dimuqraadiyaddu ay ka hirgashay. mudanayaal marweyn madaxda sharafta leh 22 sano kadib markii dawladnimada Soomaaliya dib loogu soo yagleelay dalka Djibouti madaxda iyo shacabka reer Djibouti maadiha ka gaartay dalkeena xumaanta cagta saaray dhabbihii taabagelinta dawladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka. waxaana dhabbahaas dimuqraadiyadda iyo dawladnimada waxaa saldhig u Soomaali heshiis dunidana heshiis la marka aan leenahay Soomaali heshiis waxaan ula jeednaa qodobada soo socda. 1 dhab u heshiin baahsan oo dhex marta shacabka Soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo. waxaa bogaadinayaa horumarka iyo deganaanshiyaha deegaanada Somaliland. waxaan si gaar diiradda u saari doonaa sii wadida wada hadallada ayadoo mar kasta laga jawaabayo dadkeena Soomaaliyeed inay helaan xaq muwaadinimo ay leeyihiin walaalahaas ku nool waqooyiga. waxaan ka hortagi doonaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wada hadallada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeenu isugu soo dhawaadaan dhammaantood. qodobka saddexaad
xasilooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wada tashi wada ogol iyo wadajir ka dhexeeya hoggaanka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyadoo markasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalku u yaala ama loo sameyn doono. afar taabagelinta hannaanka federaalka ah si uu u noqdo mid gaara heer degmo si dadka loogu dhoweeyo dowladnimada. shan taabagelinta heshiis bulsho oo ku suntan dastuurka qabyada ah iyadoo lagu gaarayo isqancin iyo isku tanaasul. taabagelinta hannaanka dimuqraadiyadda ee ku salaysan xaqsiinta muwaadinka Soomaaliyeed si uu u noqdo mid ciddii uu doono doorto meel walba oo dalkan ah laga dooro kara isaga. dhismaha garsoor hufan madax bannaan isla markaana ha qabtiri kara baahida cadaaladeed ee shacabkeena Soomaaliyeed ay qabaan. cadaaladdu waa udub dhaxaadka heshiis Soomaali heshiis ah. mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh, marka laga yimaado Soomaali heshiis ah waxaa kale oo hiraalkeena siyaasadeed jiheeye u ah mabda'a ku qotoma inaan dunidana heshiis la nahay. himilooyinka dowladnimada ay tigsanayaan shacabka Soomaaliyeed ma rumoobi karaan haddii aanan dunida heshiis la noqon. dunida oo aan heshiis la nahay waxaa saldhig u ah qodobada soo socda. kow inaan dunida inteeda kale iska kaashanno dhanka amniga si gaar ah dalalka geeska Afrika maanta waxaa haysta culaysyo amni oo ka imaanaya kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish. sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah inaan isku garabsanno si aan isaga caabinno cadowgaas shacabkeenna oo aan ka badbaadino shacabkeenna. labo inaan wanaajinno isla markaana xoojinno xiriirka aan la leenahay dalalka deriska ah, kuwa walaalaha ah iyo kuwa saaxiibada aan nahay intaba. in ka badan 2 milyan oo muwaadin Soomaaliyeed ah ayaa maanta ku nool dacallada dunida, kuwaas oo kaalin lagu faani kara ka qaata dhaqaalaha dalalka ay ku nool yihiin. 3 xiriirka ugu muhiimsan ee aan dunida la yeelan karno waa mid ku salaysan ganacsi iyo iskaashi dhaqaale. dadka Soomaaliyeed waa kuwo lagu yaqaano inay aad ugu fiican yihiin beec mushtarka, ayagoo dalal badan oo Afrika, bariga dhexe iyo weliba galbeedka ku leh ganacsiyo waaweyn oo qayb libaax la ka qaata kobcinta dhaqaalaha dalalkaas ay ku nool yihiin. si gaar ah waxaan yoolkeenna ahaan doonaa xoojinta ganacsiga ka dhexeeya dalalka guud ahaan, gaar ahaan dalalka Afrika iyo kuwa si gaar ahaaneed ee geeska Afrika. waxaa iyana mabda aasaasi ah noo noqon doona siyaasad arrimadeed oo dhexdhexaada isla markaana aan ku dhex milmin loolanka caalamka ka jira. Soomaaliya waxay saaxiibo la ahaan doontaa dal walba oo diyaar u ah in uu ixtiraamo madax bannaanida dalkeenna iyo mid ahaanshaha geyigeenna. mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh, intaas inkasta oo dalkeenna sameeyey horumar ballaaran, haddana waxaa weli taagan caqabado aad u ballaaran oo u baahan inaan iska kaashanno. sidaa la socotaan waxaa haatan gobolka geeska Afrika ka jira abaaro ba'an oo halis ku haya 100 milyan oo qof.
soomaaliyana waxay u nugushahay abaartaas iyadoo lagaba cabsi qabo in meelaha qaar ay macaluul ku dhufato. abaaraha ayaa noqday kuwa soo noqnoqda sanad walba. waxaad moodaa inaan u dhaxayno 6 bilood oo biyo dhaamin ah iyo 6 bilood oo aan la tacaalayno fatahaad ka dhalatay roobab zaa'ida iyo webiyada oo biyo zaa'ida wado. waxaan arrimahaas sabab u ah dhibaatooyin isbiirsaday sida isbeddelka cimilada, burburka kaabayaasha dhaqaale iyo nuglaanta hay-adaheena dowladnimo. sidaas daraaddeed dowladdaydu waxay dhisi doontaa xukuumad u xil saaran arrimaha bay-ada. marka laga eego dhibaatooyinkaas waxaa lagama maarmaan ah inaan iska kaashano dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale ee ka hortaga abaaraha iyo fatahaadaha. waxaa lama huraan ah inaan dhidibada u aasno nidaamyo xoojin kara hay-adaheenna gudaha, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya u adkaysiga ama u babacdhigidda masiibooyinka dabiiciga ah. sidaas daraaddeed anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan, dadka Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool iyo caalamkaba waxaan ugu baaqayaa kaalintooda inay ka qaataan samata bixinta dadkeenna abaaruhu tabaaleeyeen, iyadoo diiradda la saarayo abaartu inaysan u beddelmin macaluul baahda. mudanayaal iyo marwooyin, madaxda sharafta leh, marka laga yimaado la tacaalidda masiibooyinka, waxaa sidoo kale himilooyinkeenna horseed u ah kobcinta dhaqaalaha dalkeenna. howlaha hortabyada leh ee aan abbaari doonno waxaa ka mid ah inaan barnaamijka deyn cafinta ee haatan maraya bardhexaadka loo yaqaano decision point aan gaarsiino bartilmaameedkiisa ah completion point. sida aan ku gaari karnaa waa inaan si dhow ula shaqayno hay-adaha dhaqaalaha dunida sida bangiga adduunka, hay-adda lacagta adduunka, bangiga horumarinta Afrika, bangiga horumarinta Islaamka, iyo sidoo kale dowladaha iyo hay-adaha lacagta deynta ah Soomaaliya ku leh. waxaa kaloo qayb weyn ka noqon doonta taabagelinta barnaamijka deyn cafinta inaan adkayno nidaamka maamulka maaliyadda ee dalkeenna. hufnaan iyo isla xisaabtan ayaa saldhigga guusha nidaamka maamulka maaliyadda noqon doona, annagoo ballaarinayna ilaha dakhliga ee dalkeenna alla ku manaystay khayraadka. mudanayaal iyo marwooyin, madaxda sharafta leh, dowladdayda waxaa lagula xisaabtami doonaa haddii alla yiraa waxqabad. waxay noqon doontaa mid dhegaysata oo ixtiraamta dadkeeda iyo ra'yiga dowladnimada ee ay qabaan, oo keliya kana shaqaysa oo keliya dantooda ay u arkaan ama tilmaamaan inay ku jirto maslaxadda caamka ah. dimuqraadiyadda waxaa iskale shacabka Soomaaliyeed, waxaanan ku dadaali doonnaa inaan noqonno adeega shacbi oo intii karaankiisa ah u dhoweeya mustaqbalka shacabka Soomaaliyeed ay hiigsanayaan muddo aanay mudan yihiin. waxaan ku soo gunaanadayaa mahadcelin ballaaran oo aan mar kale u jeedinaya shacabka Soomaaliyeed oo wakiiladooda ay mar kale isaareen mas-uuliyadda sare ee dalkeenna. yididiilada ay shacabka Soomaaliyeed u qabaan dowlad ka tarjumaysa himlooyinkooda waa mid aan har iyo habeen ku shaqayn doono, anigoo kaashanaya taageerada shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan.
waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaashii hore walaalahay ee dalka soo maray oo maanta halkan nala jooga garbahayga taagan. isla markaana ahaan doona odayaal taladooda iyo tusaalahooda lagu shaqeeyo ayagoo leh maamuuska iyo karaamada ay mudan yihiin ee xaqa dastuuriga ay u leeyihiin iyo kan ummad ahaan iyo xuquuq dowlad ahaanba ay naga mudan yihiin. saaxiibada Soomaaliyeed ee meel maanta halkan fadhiyo waxaan ka rajaynayaa inay nagu gacan siiyaan inaan ka dhabayno himilooyinka dadkeenna ee ku salaysan Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah. waxaan ku soo gunaanadayaa aan cambaaraynaynaa ugu dambeyntii xalay dadkii Soomaaliyeed ee kooxaha nabadiidka argagixisada ay ku dileen magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah oo daafahaas ah hoobiyaal ay ku rideen awgood. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan dalalka caalamka ee Soomaaliya hiil iyo hoo mar walba la garab taagnaay 32 sano aan soo dhaafnay. dalkeennu waa dhaqaaqay, waa socdaa, in yar baa inoo dhiman, waan ka baxaynaa. waxaan sii codsanaynaa in ay dadka Soomaaliyeed isku duubnaadaan, isu tanaasulaan, dhammaanteenna aan diiradda wada saarno inaan ka shaqayno berri si aan u xaqiijino Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah. aad iyo aad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.